السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخياري كسر دوادا جنرالسكينا كلا عاتني ميديا يا عين تشوف فضلا هدي أنا لجوكتي سي شرقري سي أصحاب كلا إنه قصة بيرتو أي ما أما إن ماركتا فرنتين نان مهم كهيو جارتو دتك كلا أون ماركتا أخبار تانهين أن واحد أكتهين إن وايدن با لو فديي شركة وضتشة قرن الدور شوين كلو جهلدي waxaan hore iskugu soo sheegnay oo halkaan aad maartay kala socoteen inay sheegnay laba qodob inay ahayd waxa kaliya oo shirkaas loo furay oo danta uu kala hareeyay wasaar way qodob wuxuu ahaa qodobka koowaad oo markii horeba maaragta fashilmay ee ahaa in maaragta wada tashiga qaran in dib loo furo heshiiskii 17 September heshiiska loo yaqaan ee 2020 kadibna awood qaybsi ama awoodo iyo maaragta xeer ama maaragta dawlad la kuuriyo qodobo loogu daro midowga musharixiinta dadka maaragta dawlad la kuuriyo loo yaqaano ee maaragta fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee Hotel Jazeera waxa xusid mudan qodobka inuu fashilmay qodobka labaad oo muhiimka ah oo dawlad la kuuriyo yahay ay maaragta meelo kala duwan ay dan ka raadinayeen sida maaragta James Swan ninka leeyahay oo halkan u fadhiyo UN-ta midowga musharixiinta haduu la kuuron yahay maaragta Ismaaciil Geela Djibouti xukuma Uhuru dhinacyo badan ilaa iyo Imaaraat ilaa iyo Carabta ilaa iyo Khaliijka intaasoo maaragta haduu la kuuron yahay danood ayaa waxa uu kulminayo kaliya hal qodob oo ah inuu ra'iisul wasaaruhu ku doodo in loo dhiibo shirka haduu la kuuron yahay amniga qaran ee dalka guud ahaan sababtoo ah amniga doorashooyinka awal ra'iisul wasaaruhu waa loo dhiibay waa haysto xaq buu u leeyahay looma baahna xataa sharciga u dhiibay oo dastuurka ayaa u dhiibay amniga doorashooyinka iyo doorashooyinka hofulintooda inuu maarta halka uu ka sii wado waxa xusid mudan intaan halka qodobkaas aan u sii dhaqaaqin waxa xusid mudan amniga qaranka lagu sheegay waa magaalada Muqdisho kuma jirto Garowe kuma jirto Kismaayo sababtoo ah ciidamo toos uga marqaata dawladda ma joogaan oo hadwaalka halka kama howlgalaan haddaba amniga qaranka la sheegayo ma gaarsiisana bacdi afgooye hase ahaatee waxay ka shaqeeyaan ama loo leeyahay amniga qaranka oo la sheegayo umada loo sheegayo waxa weeyaan waa caasimada ama xamar ama Muqdisho gobolka Banaadir waxaan ognahay inuu maamul leeyahay maamulkiisii ragii maarta joogay sida Cumar Finish oo kale oo u sheegeen waxay yiraahdeen amniga qaranka lagu sheegayo magaalada anaga amniga qaranka hayna waxba maaragta hadwal la kuuray howlahaas aan halkan u imaan amni qaran ma ahan amniga Muqdisho anaga wakiilka ee danta aad leedahay waa doorashooyinka danta aan doorashooyinka ka wada hadalno amniga qaranka hadwal la kuuray yahay isagiina halka ayuu meel mar u ahaan waayay haddaba sidee maaragta dhinacyada dhamee hal mar u guul dareysteen oo guul darro ugu soo wajahday maaragta qodobka ah amniga qaranka in loo dhiibo ninka la yiraahdo Roble nimanka la yiraahdo awal waxa riixayay ninka la yiraahdo James Swan ee UN-ta halkan wakiilka uga ah James Swan nimanka maaragta filla Soomaaliya waxay sameysay maadaama ay dhaqdhaqaaqiisa ee ka war heshay UNT ayay la hadashay maaragta qaybta halkaas maaragta ergiga halka Soomaaliya u jooga sida maaragta Abuukar Baalle waxa dad UN-ki waxa loo soo bandhigay dhaqdhaqaaqadiisa ayaa la tusay iyo maaragta qaladaadka uu ku sameynayo madax banaanida qarankan kadibna telefoonada halkaas ayaa uga soo dhacay James Swan maaragta sidaas ayaa loo canaantay howshiisii maaragta shaqadiisa ayuu cabsaday sidaas ayuu dib uga dagay sababtoo ah awal James Swan wuxuu Roble kula tiri wuxuu yiri waxaan maaragta doon ku siin doona hadii alla ku roon yahay ana cadaadis saari doona nimanka la yiraahdo qorqor iyo Goodlaw iyo ninka la yiraahdo Leftegren annaga saari doona culayska iyo maaragta cadaadis saari doona inuu cadaadis saaro ragaas ka day asagii ayaa cadaadis halka laga saaray sababtoo ah maaragta filla Soomaaliya ayaa fursadaas ka faa'iideysato dhankaas ka soo gashay ninka James Swan aha هذا جيمس وان مادام دبدا كريحي امنيga qaran saas ayuu ku fashilmay hadeertan hal qodob oo nafl caari oo maaragta markuu afayeenka akhrinay macallimo akhrinay haduu la kuuriyay murmutiyeedka waxa lagu tilmaamay ee shirka maaragta 10 maalmood ku dhow socday labada isbuuc maaragta wax ku dhow ayaa waxa uu ku soo daray madaxtooyada amnigeeda waxa lagu xoojinayaa Amisom aan ognahay 3 bilood in la siiyay waliba dawladda federaalka ay diiday sanad in loogu daro oo maaragta waliba 3 biloodna ay tahay kala guur oo had maaragta hadeertan la kala qoranay si loo kala guuri lahaa waxaas oo dhan maaragta qodobadaas amniga qaranka lagu guuleystay ayuu kaas kale lagu guuleystay haddaba
maxaa shirki ka soo bax shirki waxba kama soo bix waxaan kaliya la diidanaa in shirki waxba kama soo bixin ilaa qodobo 10 waraaqood ilaa 18 qodob ayaa la soo saaray oo aan wax micnaha gooniyo ku fadhino ah halagala tasho odayaasha dowr hal la siiyo odayaashii rasmiga ah 135 ah sidaan waxyaalo noocaas oo fara badan oo wax macnaha ku soo kordhin sababtoo muhiimadda waxay ahayd shirkan loo qabtay in 17 September 2020 heshiiska ah ay baarlamaanku meel mariyeen farmaajo madaxweynuhuna uu ku saxiixa ku taagay oo maaragtay dad la gureeyay faafinta qaranka lagu soo saaray ayaa la rabay in la furo isagana waa lagu dhici waayay sababtoo ah caqabado fara badan ayaa ku hareeraysan haddii kaas la furo caqabado kala imaanaya ay kamid yihiin in 13 kursi oo gobolka Banaadir madaxweynuhu saxiixay baarlamaankuna soo ansixiyeen soo gudbiyeen in asaga lagu daro liira 13 kaas aqalka sare loogu daro gobolka Banaadir kadibna ay diidi doonaan nimankaas daaroodka ay ku metelayeen maaragtay dani iyo ninkii Axmedoobe ay diidi lahaayeen halka maaragtay midowga musharaxiinta nimanka leeyahay ay mari doonaan dhanka farmaajo sababtoo ah haddii qodobka lagu daro 13 maaragtay way ku qasban yihiin inay taageeraan farmaajona halkaas oo dhibco siyaasadeed oo xoog leh oo halka ka soo hoyin lahaa shirki wala soo gabagabeeyay wax miyaa ka soo baxay may waxba kama soo bixin saas ayaa la oran karaa akhyaaray marka waxaan ka codsanaynaa inaad sii share gareysaan subscribe-kana aad maaragtay nagula soo wadaagtaan halkan caatay media ee caynta show asxaabi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh